magaalada Madiina nin la oran jiray Julaybi radiyallahu anhu nin wuxuu ahaa damiima oo aan aad u qurux badnayn waliba iska kaftan badan oo meelaha dadka la kaftama faqiir magaalada Madiina aqal iyo qaraabo iyo qaran midna kuma leh mar walba wuxuu la fadhiistaa nabigeena kaleey salaatu wasalaam oo nabiga wada fadhiistaan marka masjidka laga kala dareero nabiga isaga isku xara maalin buu nabigu ku yiri ma guursatay markaas yaa rasuul aniga ayaa ii guurinaya nagaygan iska faqiirka xoolo malihi qurux malihi dagaankaygi maaha magaalada Madiina ayaa ii guurinaya xaliif waliba ree ansaareed buu laaha xaliif markaas nabigu maalin maalmaha kamida buu ku yiri haddana ma guursatay marka buu ii guurinaya aniga nabi Allah laba saddex jeer markuu nabigu sidaa u weydiiyay nin ansaari oo ree Madiina oo inantiisu inay qaan gaadhay uu nabigu ka warqabay ayaa nabigu ku yiri inantaada ka soo doonaya isi marka buu yiri oo nabi Allah maada inantaada iga soo doonaya warha inantaada baan doonaya isi markaasuu ninkii aad ugu farxay ansaarigi waad iga heshaa wax weeg marka buu nabigu ku yiri anigu uma rabin naftayde yaad u rabtaa hada Julaybi baan u rabaa waa nin magaalada Madiina laga yaqaano miskiina faqiira waliba aan qurux badan lahayn oo dad ma aragtaan quruxsan aanan ahayn laakiin waa shakhsi iimaani Ilaahay ku xidhan oo asxaabada kamid weeyaan marka buu yiri ya rasuulallah ma Julaybi baad inanteeda ha Julaybi baan u doonaya anu gabadha ma doonay Julaybi baan u doonayay markaas uu Julaybi ba ha bal inanta hooyadeed baan tala galinay eekaade uu ku yiri markaas u tagay oo wuxuu ku yiri naade gabadheeni wala inaga soo doonay marka hooyay inaga soo doonay nabi Maxamed alayhi salaam marka tooba nicmade nabigu naftiisa lama rabo ayuu la rabaa Julaybi ba ha Allah hayka Allah oo kala isticmaashay markaas warsoonaki hebel intaasoo oday ay wiilashooda nooga soo dooneen u diidnay ma bay ku tiri Julaybiibna sawniga taqaanid maaha nabi Maxamed baa soo doonay miyaan diidi karnaa odaygii iyo islaantii oo hadalka isku celcelinaya inantuna marka aqalka gadaashiisa fadhida xagga dambe inaga zamankeena gabdhaheenu banaanka u soo baxeen laakiin zamanka dadku way fiicnaayeeno gabadhu aqalka kamay soo baxayn gabadhu ma soo haasaawo tagayn gabadhu raga ma soo eeganayn gabadha waxa uu soo haasaawaayay aabaheed gabadha waxa uu haasaawaayay adeerkeed gabadha waxa uu maqnaa walaalkeed gabadha waxa uu maqnaa abtigeed hooyo la dhashay ninka saxaabiga ansaariga markay gabadhi u dhalato ee inantaasi ay qaan gaadho ay nabiga u sheegi jireen ku oran jireen nabi Allah inantaydii way qaan gaadhay haddaad adigu adoonaysan waa ku diyaar haddaad cid u rabtaan nabi Allah cidaad u ishaartaba waan u guurinay soo sheeg bay oran jireen sidaas marka nabigu ku ogaaday gabadha inay qaan gaadhay dana inantu xagga damba fadhida ayaa ku tiri ma nabi Maxamed oo ikiin weydiisay baad ma ku celinaysan bay ku tiri nabigu kuma rabe Julaybi buu ku rabaa baa lagu yiri marka bay ku tiri wa in kana Julaybiban bay ku tiri marka Julaybi baaba noqdaba Ilaahay iyo rasuulkiisu aniga dayici maayaan bay tiri meel xun dhigi maayaan marba nabi Maxamed haduu ikiin weydiisay waa ku kalsoonahay bay tiri Ilaahay ma dayacayo ibixiya markaas ninkii saxaabigii baa nabiga u yimiday ya rasuulullah gabadhii waad naga heshaa ninkaad sheegaysay bay yiraahdeen waan u daaqnay waa ku daaqnay marka buu nabigu u yeedhay saxaabadii war Julaybi gabadh baa la siiyay bal haloo gurmado marka nin walba wuxuu haybu siiyay war bal waa kan aqalkii mariinkii iyo meherkii iyo waxaad hawshii inta ku galba lagu yiri magaalada Madiina marka suuqa Madiina laga naadin jiray marka jihaadka la baxayo dhawaaq buu maqlay marka la leeyahay Ilaahay dartii ayaa u baxaya oo Ilaahay jidkiisa u dhimanaya oo janno ku bishaaraysanaya jihaad baa loo naadinaya markaas uu fikro wuxuu yiri ma gabadha baad la aqal gashaayad iska guursataa lagu siiyay wax xuruutiine mise xuur al-ayntaad ku hoyatay jihaadka intood u baxdo ayaa shahaado Ilaahay aad weydiisataa buu yiri marka wuxuu ku qancay oo uu doortay inuu jihaadka iska raaco ciidanka inuu dhinac ka raaco dagaalkii baa la galay muslimiintu way guuleysteen maydkii dhaawacay baa la kala guraya saxaabadii buu nabigu ku yiri war ma cid baa niga maqan ma waan dhannahay dhaawaci ma dhan yahay shuhadadii ma dhantahay aniguna laakiin nin baan tabayaa buu nabigu yiri anigu nin baan tabayaa waa ninka nabi Maxamed saxaabadiisu ay tabigu ay ka waran nabigu tabay nikee tabaysa Julaybi doona waxa la helay 9 nin oo mushrikiin intuu dilay dhaawacay soo gaarsiiyeen oo dhintay oo dul Allah lagu tagay meedkii dhexdeedii markaas nabigu yiri soo qaada kaasaan kamid ahay buu anigu sidaas yani sidoo u dhintay waan jecelahay weeyaan sidaan rabay buu u dhintay haddaan dhiman lahaa sidoo u dhintay baan u dhiman lahaa weeyaan macnuhu hada minni wa ana minhu ba nabigu alayhi salatu wasalaam soo qaaday nabigu intii qabriga loo qodaayo dhulka ma dhigin meedkiisa xataa baa la yiri nabi Maxamed dhabtiisu ku haya dhabtiisa bal fiirso
gabadhii buu nabigu xasuustay markaa buu ilaahow gabadha uu ninka uu ka dhintayna ilaahow nolosha ciriiri ha ka gelin arsaaqadana sa roobka kaga dhig buu rasuulku yidhi gabadh waxay noqotay barakaysan taajirada dhaqaale leh oo dhaqaalahayga diinta ku bixisa oo rixin barakaysan leh markaasay odhan jirtay ducadii nebi maxamed waa kaas waan ka faa'iidaystay